dhimashada dadka dhintay ee lagu aasay xabaalaha weyn ee Burco ee dhinaca koonfurta ka xiga magaalada xabaalihii hore dahabshil iibiye ku dhow ee la yaqaano dadka ku dhintay 26 ka casho magaalada ee xabaalaha lagu aasay kuma jiraan xabaalaha kale ama tuulooyinka kuwa lagu aasay kuma jiraan waa 142 ruux weey 142 qof waxaan rumaysanahay dadka inta badan ama sida la og yahay inta badan inay u dhinteen xanuunkan imika inagu habsaday weynaha iyaga waxaan soo bandhigaynaa xanuunku inuu meel halis ay nala marayo si halisana uu u fidayo si dhaqsaana uu xudilay dadka qaar oo waayeelkii magaalada 20 daqiiqo intii uu ku dhacay ee laga dareemay iyo intii uu dhintay 20 daqiiqo gudahood buu ku dilay waxaan leenahay weynaha reer Burco anagoo si naxariis iyo maamuus leh ula hadlayna xanuunkan dhaqaatiirtu talooyinka ay nasiiyeen aan qaadan culimadayada gobolka Togdheer ama degmada Burco masaajidda gacanta ku haysa si sharaf iyo maamuus leh waxaan ugu soo jeedinay inay nagala qayb qaataan xanuunkaas ay og yihiin dadka maalin walba ay ku tukanayaan tirada ay leeyihiin dadana ay war ka hayaan sidii loola tacaali lahaa inay wax nagala qabtaan oo laba xaalaba ay nagu taageeraan manaabirta iyo jimcayaasha iyo wacdiyada iyo casharada ay dhigayaan intaba xanuunka qatartiisa iyo maanta Burco ahaan halkuu inala marayo inay ka sheegaan midda labaad masaajidada ee dadka ku tukanaya in la kala fogeeyo meelaha la isugu imanayo marka la gelayana ama masaajidadu ay kamid yihiin ama dhulka wax lagu dhigayaa ay kamid yihiin ama dhulka duruusta laga akhriyaa ay kamid yihiin in qof kasta face mask iska sito distance ama fogaanta loo ay marka dhaqaatiirtu inoo tilmaantayna la qaato xogayaha dawladda hoose ee degmada Burco ayaa isaguna dhankiisa ka hadlay xaaladda cudurka COVID-19 isagoona ku dheeraaday khatarta uu leeyahay cudurkaasi dadka waxaan ku codsanaynaa in aan nagala shaqeysaan oo aan qaadataan talooyinka iyo wacyigelinta aan had iyo jeer sida qaalibka dadka u sheegay waxa dhacda oo marar badan dhacday dadka xanuunkan u dhintay COVID-19 in dadka ehelooda ay dhakhtarka ku qamaamaan oo goobta qofka ku dhintay ku qamaamaan oo ay yiraahdaan annaga maydhayna annaga aasayna iyo waxyaabo la mid taasina waxa weeye dhibaato kale iyo jiriimad kale oo kor u sii qaadaysa faafitaanka cudurka dawladda hoose iyo wasaaradda caafimaadka gobolku waxay iska kaashadeen shaqaale labada dhinac oo la isu geeyay oo diriiskoodii iyo wuxuudii qalabkoodii qafilaashita oo loogu talagalay meydka u dhinta xanuunka COVID-19 inay iyagu aasaan ee guryaha ku haysta ee marka damana la anaga maydhayna ee la anaga aasayna waxaanu ka wacyigelin waxyaabaha noocaas waa faafitaanka aadka u badan waxaanu ka wacyigelinaynaa oo dadka bulshada sheegaynaa in la iska ilaaliyo goobaha ururka keenaya in la iska ilaaliyo face mask la'aan in dadka dhexdoodii lagu joogo in salaadaha dhexdoodii lagu tukado in meelaha meherada TV-yada iyo fiidiyoyada lagu daawado iyo meelaha goobaha ciyaaraha ah iyo waxyaabahaas oo dhan laga fogaado hadaan maamulka dawladda hoose nahay baabuurteeda halkan aan subax kasta ka diraa sameecadaan saaraa shaqaalaan u diraa 6 ilaa 6 way soo wacyigeliyaan magaalada inta way qaylinayaan dadku inay nala fahmaan oo wacyigelinta qaataan oo laga wada taxadiro وين حنوك اللي قلت